tababarkan ayaa muddo u soconayay saraakiisha labada dhinac ee maamulada Puntland iyo Galmudug iyagoona ku qaatay tababaro la xiriira isu dheelitirka tayada ciidanka booliska iyo iskaashiga ciidanka maamulada Puntland iyo Galmudug ka wada dhaxayn doona waxaana tababarkani bixinayay khubaro ka socota wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka horeynta ayaa halkaasi waxaa ka hadlay mid ka mid ah macallimiintii bixinaysay duruustaasi. Communicate what you want done so the troops understand it. So we're going to do a little exercise on communication. kadib ayaa waxaa ka hadlay gudoomiyaasha gobolka Mudug ee maamulada Galmudug iyo Puntland Cabdirashiid Xaashi Cartan iyo Xasan Abgaalow. si gaar ah waxaan u salaamayaa madaxda maanta walaalaha ay noo yimid tababarka nasiinay. Specifically, I'd like to salute the brothers who are providing this training to us. sidaas la mid waxaan salaamayaa saraakiisha ka socota. Similarly, I pass my greetings and salute to the officers here. Galmudug iyo Puntland. Both Galmudug and Puntland. runtii waxay noo tahay fursad aad iyo aad u weyn. This is a great opportunity for us. inaan maanta saraakiisheena ku wada qaadato tababar. To our officers joint training. annagana madaxda gobolka aan xaadir ku nahay. For we as the leaders of the region be present here. waxay noo tahay shay fursad aad iyo aad muhiim u ah. This a meeting like this. haddaan halkan isku barannay. And now we have the opportunity to introduce ourselves to each other here. waxa weeye arrintaasuna arrintan marka waxyaalaha ay muhiim ku tahay waxaaba ka mid ah inaan isbaranno. And that itself has a very importance, starting with getting to know each other and having that introduction. dabadeedna aan u gudubno markaas sidii aan isaga kaashan lahayn saan isaga difaacno cadowga. And from there moving on toward how we could collaborate and defend ourselves from the threats and enemy. saan dhibaatooyinka oo dhan u xalino. To resolve all the problems existing. ugu dambeyntii ayaa saraakiisha dhameystay duruusta waxaa la guddoonsiiyay shahaadooyin la xiriira tababarkii ay qaateen waa markii ugu horeysay tababar la xiriira iskaashiga dhanka amniga loo qabto maamulada Puntland iyo Galmudug. Xasan Cabdiraxmaan Aadan Xasan Fantastic TV-ga Somali Cable Gaalkacyo.